ninbati ku dheer baa dumarku dhalaal badan aaday dhaawacay dhool baro ilaa iyo dhabankii bureeqiyo nabi Yuusuf tuu dhalay qorxoodu dhigantaa anoo kula dhaqaaqo kula dhoofo mooye miyaa layba dhigaya hurdadaba dhammaanteed dhalalo ma siiyaadan kuga miye Suhayb yare intaan u gelin gabayada tirisay bal marka hore taariikh nololeedkaaga kooban taariikh nololeedkaygu magacaygu waa Suhayb Jaamac Cabdi waxaan la noolahay hooyaday iyo aabahay iyo walaaladay waxaan ku noolahay magaalada Burco gaar ahaan xaafadda Caqibo waxaan dhigtaa dugsiga hoose dhexe Ismaan Cabdi Cali Siide galaaskeeta galaaska afraad tawdal sida wada dheehanaysa amba Suhayb Jaamac Cabdi waa wiil aad u da'yar isla markaana aanay islahayn abwaanimo hibada ku jirta iyo sidoo kale sidoo uu tirinayo gabayada aan idin kala baxo gabayadiisa Suhayb Jaamac gabaygaaga ugu horeeya baxsan baa la dhahaa baxsan baa la dhahaa waxaan u tiriyay iskuulka aan dhigto iskuulkaaga magaciisa Siide Ismaan Cabdi Cali iskuulkaas aad u tirisaa bal waayahay sidaad gabaygan u tirisay wuxuu ku bilaabanayaa ardayay bogaad Soomaaliyeed bariitii salaam bilan gudoomo baxsan oo bureediyo biladii astaaniyo looga dhigay banaaniyo marka xigta bushaariyo dugsigeena baadiye cilmi lagu bogaajo looga dhigay bartiisuga horta barashadeena waa aqoon buuxda weeye aqligii baraali Ismaan Cabdi Cali ka bayra dugsi baaxadina boqolaal barbaariyo bulsho guul ku gaadho baradii wacnidii mantalkii tagdheeriyo burca baadilkeediyo bartama ku yaalo baradii samaataba loo boqolo weeyaan jaaligu burburiyo aqoontu burburiyo barmado ka reeba hadal buuq ma daayo badooraadii beedkaygan dhuuxo bartaad ku socotiyo himilada ogaagii biltada garaadkii barayaal aqoon loo alla baawar saaro cilmi lagu bineeyo beerjilaac dulqaadiyo naxariis burqanaysa booliyo kalgacaaliyo nafta ay basaasto xigmadiyo baxnaaniyo murtibada عزيزو واحد كذا بقتها كابا سارة عبد الله بوقي ما من بحويان مركب بقولنا محمد بابتي سيبو اسكيس بحشي فرشاد حسابتنا عبد وكبر يكو كربلا يسوع أنت بلعت له كي سبب بلالي مرتكب برحسي دينتنا بلعت له لقوا له برواقة براء كنا ذي بقولنا الوحوك له وعكبر بيتاي فتدكو كربلا بري سماية بغر أحمد كيني علم بالشدة قرنية بلابين باللي باقي كليا كجبوا عبد الرزاق ساينس كي برورتي عذر الله وحبيك صدا لقوا كلا بداشي كجبوا محمد داق waayahay inta aan kaga nimaadno baxsanaad u tirsay iskuulkaaga aad dhigato adigu intaan inta labaad galin markii abwaanadu curinayaan gabayada waxay tiriyaan xilliyo ama habeena ama meel cilaabay ku tiriyaan adigu Suhayb marka tirinayso gabayada si meel nooceed ku tirsaa anigu habeena kuma tiriyo meel cilana kuma tiriye goor allaala goortidaan waqti haystaan tiriyaan ayay ku tirisaa aad ayuu u mahadsan yahay Suhayb oo aad wiil aad u da'yar isla markaana aanay islahayn hibada Suhayb ka qabanaysa iyo sidoo kale da'diisu ay talabaad u gudubno waa Asmaa gabaygan inaan Asmaa la yiraahdo tirisay gabaygan saad u tirisay seeso kugu dhashay gabaygan wuxuu tiri inaan saaxiib aan ahayn ayaa igu yiri inaan Asmaa la dhaho ay wala isku dheeraayeen igu yiri igu samee dadna wuxuu ku bilaabanayaa Asmaa dhool ilaaciyo waxaad ila dhigantahay sidii dheeman iyo luudhiba horti jiilaal macaad kaliileed iyadoo aan raadacay dhayala iga moodina waxa ugu dhacay jacayl oo dhaxaya lafaayal bowlaha dhexdiisu dhismayga samaystaan iga dhaaween kuwa kaba dhaadheer dhamalba loo xidhay markay dhaqaaqan ka ilaa dhamanada dhookinaya suuqyada iyo dhamaantii markooyda digo raarka caynta gowlada dhigo ana la dhex taago adna lagu dhex taago midaan kaaga doorsado ismay kameeliyana iga dhaaween haddaan dhinaca la dhigana dacalif ku dhigay muruma nafta din xaag joogiyo iga qaba dhambalada soo dhib waraaqaadna soo dhignayo dhigo jacaylkii aad ayuu mahadsan yahay waxaan oran karaa